6,8 6,8 10 12 waxay ku aadaysaa halkan ay galaysaa 21 waxa waaye sababtoo ah waa tiro dhaban ah x kana uu ka weyn yahay 4 uuna ka yar 16 marka tirooyinkaasi waxay ka weyn yihiin 4 waxayna ka yar 16 sababtoo ah 6 waxay ka weyn tahay 4 8 sidoo kale 10 sidoo kale 12 sidoo kale 14 sidoo kale 16 way ka yar yihiin su'aasha koowaad marka waxay galaysaa halkaas ay galaysaa waa tiro dhaban ah oo ka weyn 4 kana yar 16 mid labaad waa 8 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 8 ayadana waxa waaye waa 8 baawaradoodan ay yihiin 4 waxay galaysaa marka su'aashan 22 halkan ay ayadana galaysaa waa 8 baawarada mid kastan baawarkiisa uu yahay 1 waa isku darsamaan waxay noqonayaan 4 waa 8 baawar 4 su'aasha 23 waa 3 jibaarka tirada 512 tirada 512 waxay ka imaaday waa tiro oo 3 jeer la isku dhuftay tiradaasna waa 8 waxay noqonaysaa marka 3 iyo 20 halkan ay galaysaa su'aasha 23 sababtoo ah 512 waxay ka imaaday 8 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 8 oo 3 jeer la isku dhuftay su'aasha 24 waxaana la siiyay tirooyin 8 milyan oo loo qaybshay 10,000 ayadana waxaan leenahay every isla baxayaan every kale sidoo kale every waxay noo soo hartay 800 loo qaybshay 800 hadii hal loo qaybino isla 800 marka waxa loo qoraa qorma saynis ahaan waxay noqonaysaa 1 2 waa 8 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 2 intan waxay noqonaysaa mid 24 halkaas ay galaysaa su'aasha 25 waxaana la siiyay marka 4 loos dhigay x loos dhigay 7 oo lagu daray 4x oo loos dhigay 7 waayahay ayadana sareeyaha isku darsamayaan waa x loos dhigay 7 oo lagu daray 4x oo loos dhigay 7 haysana x kan iyo x kan waxaa qorsoon 1 x kan kale waxa wataa 4 hal 4 ku dar marka waa 5x oo loos dhigay 7 hal laga soo qaadanaa waa 5x loos dhigay 7 5x oo loos dhigay 7 su'aasha 25 waxay ku aadaysaa halkan 25 su'aasha 26 waa isku dhufasho x waxay ku dhacaysaa 2 waa 2x na isku dhacayaan waa x square waxay noqonaysaa 2x oo square 2x square ayaa halkan ka raadinaya qaybta isku aadinta waa halkan mid 26 halkaas ay galaysaa su'aasha 27 x + y waxay la mid tahay 12 x - y waxay la mid tahay 4 waxa loo jeedaa waa isla egyo wada jira tan 27 halkan ay galaysaa waxay ku aadaysaa isla egyo wada jira su'aasha 28 waxaa lagu siiyay 4xb loo qaybshay 2b b way isla baxayaan 4 hadii 2 loo qaybin waa 2 waa 2x ayaa noo soo haray waa 2x waxay ku aadaysaa 2x 28 halkan ay galaysaa su'aasha 29 xagal dibideedka 8 gees la qaabsan waa xagal dibideed 8 gees la qaabsan waxaa lagu helaa 360 oo loo qaybshay inta ay 8 waxaan qaybinaynaa 8 waxay noo soo baxayso 45 degree ama 45 su'aasha 29 halkaas ayay galaysaa mid u dambaysa barta dhacda ama bar dhacda bartanka xariijin waxaa loo yaqaanaa barta bartameed su'aasha 30 halkaas ayay galaysaa marka qaybta labaad isku aadinta halkaas aan kaga baxnay waxaan gali doonaa qaybtii saddexaad oo ah buuxi meelaha banaan ee guda galayna ayadana waa 10 su'aal oo min 2 dhibac ah isla socod wanaagsan ururka soo koobay dhammaan ururka ku tirsanayaasha ururada waxaa lagu magacaabaa midkood waxaa galayso urur guud waxaa lagu magacaabaa urur guud su'aasha labaad marka la fududeeyo ee ku jibaaran 3 lagu dhuftay ee ku jibaaran 2 lagu dhuftay ee ku jibaaran 7 saddexda ee hal ayaa ka soo qaadanaynaa 3 iyo 2 iyo 7 oo isku darsamaan sareeyaasha waxay noo noqonaysaa 2 waa ee power 2 su'aasha 3 iyo 30 marka la isku daro jajabka x loos dhigay 8 oo lagu daray 2x loos dhigay 8 waxay noqonaysaa halkan wana oo qorsan oo isku darsamaan waa 3 waxay noqonaysaa 3x loos dhigay hoose in halka soo qaado waxay noo noqonaysaa marka 3x
oo loo hoos dhigay 8 ayay noqonaysaa. Su'aasha 34 marka loo bedelo 3 lagu dhuftay 10 ku jibaan 3 saansaanka caadiga ah. Saansaanka caadiga waxa la wadaa waa furfurinaa tiradaas waxay ka timid 3 aan soo qaadanaynaa باورك waa 3 aan ku dareynaa 3 eber waa ku dareynaa 3 eber waxay noqonaysaa 3000 ay noqonaysaa qormo sayniska marka loo bedelo saansaanka caadiga jawaabtu waa 3000 dhinaca laba jibaarana ayaa ah 2ab hada wareegiisu waa wareeg leeyahay markaas aan u dhinac kamid ah nala sii 2ab marka afarta dhinac waxay noqonayaan dhinac walba waxay noqonaysaa 2ab marka waxay noqonaysaa 4 meel oo min 2 ah waxay noqonaysaa 4 meel oo min 2 2 ku dar 4 4 2 ku dar 6 6 2 ku dar 8 waa 8ab waxay noqonaysaa 8ab ama waxaan dhihi karnaa 4 ayaan waxaan ku dhufanaynaa 2ab 4 hadii lagu dhufto waa 8ab waxay noqonaysaa marka waa 8ab ayay noqonaysaa su'aasha 35 waxay noqonaysaa 8ab ayay noqonaysaa midda 36 aan aragnaa iyadana badka leeyahay dhinaciisu ay yihiin m+5 iyo m-5 oo isku dhufanaynaa mm ku dhufan waxay noqonaysaa m square plus minus isku dhacayaan waa minus 5 ku dhufan waxay noqonaysaa 25 ayay noqonaysaa waa m square minus 25 ama qaabkii isku dhufashadana waa isticmaali kartaa waayahay 37 fududeynta x power plus 4 oo la jibaaray x plus 4 oo la jibaaray waxa loo jeedaa waa laba mar oo la isku dhuftay x plus 4 oo lagu dhuftay x plus 4 waxay la mid tahay isku wada shaqeynaynaa x ku dhufan waxay noqonaysaa x square x ku dhuf 4 waxay noqonaysaa plus 4x 4 ku dhuf x waxay noqonaysaa plus 4x 4 ku dhuf waxay noqonaysaa plus 16 waxaan soo qaadanaynaa marka x square noo soo qaad plus 4 isku darsamaan waxay noqonaysaa 8 labada x halka ka soo qaada plus 16 waxaa noo soo baxday x square plus 8x plus 16 waxay noo soo baxday x square plus 8x plus 16 ayaa inoo soo baxday qaabkii kale waa isticmaali kartaa oo ay qaacidadii ahayd baada loo isku wargeliyay oo lagu daray laba oo lagu dhuftay ba'da iyo ta'da la isku dhuftay oo lagu daray ta'da la jibaaray qaacidadan la isticmaashanay isla qaabkaas ayaa ku soo baxayso jawaabta su'aasha 38 aan aragnay xeerka lagu cabirka xeerka lagu helo cabirka beduleedka dhul lagu oodan waxaa lagu helaa waxaan ku helaynaa 2 by oo lagu dhuftay gacanka oo lagu soo dhuftay gacanka oo lagu daray jooga qaacidadas ayaa waxa loo yaqaanaa waa xeerka lagu helo cabirka beduleedka dhul lagu oodan su'aasha 39aad wadarta xagal gudeedka afar gees la qaabsan waa afar gees la qaabsan ayaan laga rabaa inaan soo saarno wadartiisa waxaan ku helaynaa n oo laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 waxaan haysanaa marka inta waxa waaye 4 ayaan haysanaa oo laga jaray 2 oo lagu dhuftay 180 degree 4 hadii 2 laga jaro waa 2 waxaan ku dhufanaynaa 180 waxay noo soo baxaysaa 360 degree hadaba jawaabta saxda waxay noqonaysaa 360 oo degree waxay noqonaysaa 360 oo degree waa 360 degree waxaan marka afartanaad waxaan la sii dhinacan waxaan qaadanaynaa a dhinacan waxaan qaadanaynaa b waxaan naga maqan c square marka waxa lagu helayaa la jibaaray oo lagu daray b da la jibaaray c square waxay la mid tahay waxaan haysanaa 12 la isku wargareeyay plus b na waxaan haysanaa 5 oo la isku wargareeyay c square waxay la mid tahay 12 la isku dhufto 2 jeer waa 144 oo lagu daray 5 2 jeer isku dhufto 25 c square waxay la mid tahay 144 hadii loo geeyo 25 noo soo baxayso 169 halkaan waxaan ka saaraynaa laba jibaarka halkaan waxaan ka saaraynaa labada c marka waxay la mid tahay 169 dhexdeedka laga saaro waa 13 hadaba dhinaca maqan waxa inoo noqday 13 halkaas aan ku gabagabeynaynaa qaybtii labaad iyo midda saddexaad oo kala ahaa buuxi meelaha banaan iyo isku aadinta intaan qaybta kala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo